okay waxaan rabaa inaan sameeyo qaybtii boodiga qaybta hoos image bisa iska soo gashan doonaa qaybteena boodiga hoos ayaan kasii samayn doonaa containerkaas ayaan shaqo ka qaban doonaa waayahay inta la iska imaan doonaa boodiga uu noo samaysan yahay maana background-iga la ka bedelaynaa waxaan leenahay intii maaco dot body why aan dot ugu waca because class waa dot maxaa ugu wacay sababtoo ah inta eeg because class uu dhex jira boodiga wax kastood class ku wacdo dot ayaa isticmaali doontaa wax kastood class geliso badan ku wac doonaa waxaan dhihi doonaa wiirtigiisu 100% shaashada hay leekaado height-kiisu ha ii noqdo somehow 700 pixel background color-kiisu ha ii noqdo green haddii aan refresh idhaahdo waxaad dareemaysaa background color-ka aada u balaaran yahay aan ka dhigo 500 refresh 500 ay ka badan waxaan rabaa marka background color-ka aniga ma rabo background image una soo gashtaan rabaa waxaan tiri doonaa color-ka waxaan dhihi doonaa background image URL image-kii maxaa waa image-kii waxay ugu qoran 3.jpg inay ku qorantahay jaalle 3.jpg refresh waa la soo geliyay laakiin xogaa waxaad dareemaysaa in aad u weyn yahay waxaan leeyahay image ama background size background size-ka waxaan ka dhigi doonaa cover background size-kii waxaan rabaa inuu noqdo cover macnaha si quruxsan loo soo geliyay inuu soo laalaabanin waxaan dhihi doonaa background repeat inuu background soo laabto no repeat inuusan macnaha igu soo laalaaban haddaan refresh idhaahdo si clear uu soo baxa marka waayahay waxaan rabaa inaan u samaysto xajwan okay tanaa ka socono marka qayb hoosaan u baahanahay marka halkaan u baahanahay boodiga hoostiisa imaan doonaa waxaan samaysan doonaa xataa boodiga waa ka dhex furi karnaa laakiin uma baahni def ayaan samaysan doonaa defkan aan boodiga dhexda siiga fur iga tarintintinoo waxaan dhihi doonaa div defkaas waxaan ka wacan doonaa classkaas waxaan ku samaysan doonaa container baan samaysan doonaa containerkan ayaa waxaan dhex gashan doonaa marka ugu badan waxaan dhihi doonaa div class section 1 c1 oo soo qaadan doonaa inta la ii koobiyey section 1 section 2 section 3 waxaa ugu dan leeyahay tusaale ahaan tan ha ii qornatada tan iska tir tusaale ahaan oo ku fahansiiyo control s haddii intaan aan refresh idhaahdo waxba maba sameynin masiis waxaa ka maamul meeshaan raba container aan soo geliyo containerka aan sameeyay xaguu ku dhex jira boodiga .body.container ayaan rabaa inaan shaqo ka qabto si aan containerka shaqo u qabto waa inaan boodiga soo mara oo idhaahdo .body.container intaan shaqo iga qabo background color igu sameey control z wiirtaan raay balaca anaa sameey wiirtigiisa 100% sidoo kale height-kiisu dhererkiisu waxaan rabaa inaan ka dhigo 400 pixel background color aan marka lagu gartana oo sameey colorkaas ii soo qaado marka haddaan refresh idhaahdo qaybta aan sameeyaa
intay gashaad saan noqoto waay because maxay u baahan tahay float left u baahan tahay hadda boodiga inaan tago boodiga iska yiraahdo float left waa markasta cabirka ku saxaya kana imaado araahda float left xagee still wax ka qaldan yihiin kortag headerkii imaado float left dhaasagan hadda wuu sax doona marka because waxaan dhexgeliyey waa qaldanahay intaan ka qaldanahay tan la dhexgeliyey ma tan loogu baahno marka midaan kasoo dhex saar control x intimaa containerka banaankaan geysan doonaya waxaan ka dhaawacay kalaas control x containerka banaankiisaan dhigi doona control v intana maxaan samayn doonaa instructionka waa ka laana marka boodiga kuma jiro banaanku yaallaa soo boodi la iska tire waxaa kalama samaynaysid boodi la iska tire intaas keliya sameeye hadda waxaad dareemaysaa in lagu soo daraa kara okay kaara marka 4 qaybood u qaybiyo kadibna asawiro soo geliyo sectionna oo kala sameynaa marka sections loo sameeyaa containerka imaan doonaa intuu ka xiran yahay clicksii intuu ka xiran yahay intana waa ka furan yahay dhexdiisa imaan doonaa deefaan ka dhex furan doonaa deefkaas waxaan kasii dhex furan doonaa classkaas waxaan dhihi doonaa section 1 c1 intaan laynoo koobiyey marka control c control v afar xabo nooga dhig 3 4 section 1 c1 s2 section 3 أنا section معناها رئيسان بس كده قرنها هذا بحر ربطه أنا أكو قرن كرتا قدال كرتا قرن سا أوكي container كده أكرم لك وهذا أنا أفرح بكل جبي هل حبوا كل هو هان سمينا كل واحد تقدر CSS ك هني دورا .container section 1 كل حجران شخص قبصنا وحليه هاي wiirtigiisu balciisu haylee kaado 25% waaye haydkiisuna 400 haydka caadiga la siinaysaa 400 maadaama cabirka soo siinaa 400 siinaysaa background kala raacsan marka waa qoosad background colorkiisu waxaan ka dhigi doonaa brown haddaan refresh iraahdo مصباح واي because قلبها يعني أيضا اللي هذا float left هذا refresh هذا كلكي مصباح واي يا يوسف يا حس تكسكع واي هاي container S1 S1 لا يورا اسكسو بيو كونتينر ك دوت S1 وقلدنا S1 كما كل حاجه تفيري S1 كما كل حاجه خلاص دوت S1 اللي هذا ايضا ما انت زغلت القلم كونتينر دوت S1 يا شغله يا رمضان انت زغلت اسمين الكلام الدريم الساعه ويا هي شو كلام هربات قيبت اللبات انت اللي نسو كوبي كنترول سي كنترول في كونتينر S1 ماشي هنكرر دونا S2 انت هكذا اسمه كيين كلرك اللي كبدل دونا باقران لي عليه دونا باقران لي هذا هيريتا يلو كديرنا فلوت ليفت ريفريش يلو ليسمي انت اللي سيكو بسنة متك سدحت S3 because why I'm also كوبينا
انت فيري لما اسم ملكي هكذا هذا فيرنا S1 كلاس يكون حجرتها S2 كلاس خلاص S3 باقي أنا كلر كذا إذا نحن كريد أنا green هذا refresher هذا أو دريميسا مدة أفراد أو قدام بيس الله استيعاب باقي أنا كلر كذا إذا نحن كريد أنا orange sidaan color noocan iska qaadan doonaa refresh sidaan u sameeyay marka meesha marka ma doonaa sidaan ay ahaato waxaan samaysan doonaa our company ama salahan waxaan rabaa inaan samaysto containerka banaankiisa si deef dhexda waxaan ku oran doonaa xajwankan waxaan u samaysan doonaa salahan عندنا our team control S هديان refresh هذا our team انت صوبش عارض عن دخل جيست هاستعملها مركب دخل ساوي جيو حقيقة كجرتها ماشي كجرت فيري بودي يكون حجرتها معنا بودي هتكون حجرت بنانك يتعلم هدي بنانك يتعلم على سمينا ama body loo soo dhaxgeli hadii aan body dhaxgelino shaqeynayso laakiin waxaan sameyn doonaa waxay ku dhex jirtaa heerka ku dhex jirtaa heerka no hadjoonku waa kaligeeda aan waxa marka inta imaan doonaa waxaan dhihi doonaa hadjoonka text align center dhaxal la keenay kaligeeda waa maama اوكي انت اصلا كريبي انت halkan aan sii qorxano marka midana sii qorxano waxaan rabaa saan mid doonaayo inaan waxaan in bedelo aan qoraa wax kale ku soo bedeshto koo image oo soo gashana meeshaan S1 ku waa imaan doonaa waa kala jibsan doonaa S1 ku waa dhimaa kala jibi meesha waxaan soo gelisaa image soo gashan doonaa tusaalahaan S5 image kan number 5 soo gashan doonaa aniga 5.jpg haddii aan soo gashto refresh raado sawirkaan soo galay ama 6.png mid kala soo gashto yaa sana hore isku keena kan baa soo geliyay tusaalahaan sidaan u sameeyey waxaan marka kow inaan sayr color ka soo qaado waxaan tagi doonaa S1-kii waxaan dhihi doonaa background colorkiisa brown-kiya waxaan ka dhigan doonaa white ayaan ka dhigan doonaa colorkiisa waxaan ka dhigan doonaa white ayaan ka dhigan doonaa ise waxa yar waxaa jiro laamiga lagu dhow yahay white ayaan ka dhigan doonaa waa kana marka colorka xoogaa sawirkan shaqo ka qabanaa marka sawirka waxaa ku yaallaa intii ma wadadana mara doontaa containerka S1-ka image ku dhex jira dhihi doontaa intii ma waxaan leenahay container.S1 image ku dhex jiro shaqadii qabo waayahay mirtigiisu waxaan ka dhigi doonaa 100 pixel mirtigiisu waxaan ka dhigi doonaa 100 pixel heightkiisuna asagana waxaan ka dhigi doonaa somehow 100 pixel walaan fiiriyo wuxuu sidoo noqdo refresh ugu yaraaday so 200 iska weyn hadduu rabo muhiim maaha sidaan noqdo okay meeshaan wirtigu okay halkan intaan u daysto 200 taan u daysto sidaan u daynaa waxaan rabaa sidoo kale image-kan hadda waxaad dareemaysaa image-ka inuu yahay inaan way kuwaab inaan ka dhigo
inaan circle ka dhigo waxaan dhihi doonaa border radiuskiisu waxay iga dhigtaa 100 pixel. border radiuskiisu waxay iga dhigtaa 100 pixel. sidaan u noqday border radiuskiisu waxaan ka dhigi 100 pixel. kuwaana sida camal aan soo geliyo. sidoo kale kan maxaan samayn karaa intaan lasoo koobiyeysanaa macnaha waa iskaga mid maahno. halkaan imaan doonaa waxaan dhihi doonaa kow image ii soo geli intii maa u kala jibi image soo geli. imageku waxaan dhihi doonaa 4.png kadib haddaan refresh iraahdo sawir asaan soo galay. sawirka asagana waxaan rabaa shaqo ka qabto soo colorkeeda aan bedelo s1 s2 sorry s2ga intii maa waa kana s2ga yellow meeshii hada imaan doonaa waxaan dhihi doonaa colorkeeda caddaan iga dhig symbol fresh. imageka uu weyn yahay marka sida kan camal rabaa inaan yeelo intaan la u baahanaa control c control v. containerka s1ka meeshaad bis waxaan ka dhigi doonaa s2 image ku dhex jiro cabirkiisa intaa iga dhig. ilaan tan maxaa isticmaalayna height iyo width iyo background iyo borderkiisa. haddaan refresh iraahdo sidaana laga dhigi same. midaana sida camal midda saddexaad waxaan imaan doonaa section 3 s3 halkaan ta kala jibi kadib image soo qaco waxaan dhihi doonaa 6.png s3ga ku laaban doonaa s3ga ayaan ku laaban doonaa. colorkan waan bedeli doonaa waxaan ka dhigi doonaa white. colorkan waxaan ka dhigi doonaa caddaan symbol refresh. sidaan u noqdo sidaan ayuu isku bedeli white u noqdo waaya white ayuu isku bedeli. waxaan rabaa marka sida hadda camal laan sameeyo intaan la koobiyeysanaa waa wataa koobi control v de s3 le meeshaa ka dhiganaysaa. imageka intaan la igo waa same refresh sidaan laga dhigi. tanna imaaw waa s4 u imaaw ama section 4 kala jibi image soo waco. s4 markaan kala jibino oo image soo wacano waxaan dhihi doonaa 5. haddaan refresh iraahdo sidaan u noqday maxaan sameynaa marka maxaan sameynayaa intaa imaan doonaa halkaan imaan doonaa intii lasoo koobiyeysanay control v s4 image ku dhex jiro shaqo iga qabo cabirkeeda intaan iisii symbol. wax kale oo kaliya iskumada wada yihiin hal habale shaqo qabana waa bedeleen kan sababta colorka uu leeyahay still colorka ma ka bedeleen. inta fiiri s4 colorkeeda ujeedaa white kama dhigin that's why colorku dheeraya white ka dhig. haddii aan refresh iraahdo colorkiisaan isku wada bedeli waaya. waxaan rabaa inaan qoraal hoos ku qorto qoraal si aan hoos ugu qoro intaa imaan doonaa s1ka imaan doonaa kan lay ka maamulina hal xabaan sameynaa inta kale koobiyeysanaysaa oo keliya. waxaan dhihi doonaa hagtiri tusaale ahaan engineer magacaana iskaga qoray. haddaan refresh iraahdo sidaa u noqdo macnaha marka sidaa ma doonaayo. waxaan rabaa inaan geliyo intan waxaan rabaa inaan dhex gishto control x hajreef anaa inaan dhex gishto si farta colorkeeda isku bedelo buluug su igu noqdo control v. refresh sidaan noqdo marka waaya
control z uma ubaahnaba kana tunbaa ana usmaysana hajreefa iska tir midkaas ka tir control v de ma ubaahan xaggan ka wacan doonaa sidaan ma noqdo mahna okay markuu sidaan noqdo maxaa samaynaysaa waxaan samayn doonaa waxaan rabaa xoogaa inaan yar bilaariyo fartan aan yar weyneeyo kalarkan aan ka bedelo waddadaanaa maraa marka containerka ee suun ku dhex jiro xaj tirii kusii dhex jirto shaqayga qabo intaasaa mari doontaa halkaana waxaan dhihi doonaa dot container xaj containerka dot s1 xaj tirii ku dhex jirto shaqayga qabo waxaan samayn doonaa kuwa kalarkeeda waxaa iga dhigtaa blue iga dhig kalarkeeda font size farta sizekeeda waxaa iga dhigtaa 30 pixel iga dhig refresh saan laga dhigi wala xoogaa oo weyntahay 30 20 ka dhig refresh sidaa noqoto kuwan kale maxaan sameynaa intaan baa soo koobiyeysanaa kaliya intaan soo koobiyeysa tusaale ahaan intii naawo waxaan rabaa midka afaraad inaan tago tusaale ahaan midka afaraad inaan tago qoraalkan la iska soo koobiyeysanaa horta control c kadib intii naawo waa ku koobiyeyna oo kaliya waa symbol tusaale baan u dal leeyahay control v sidaan u koobiyey control s hadda maxaa isbedeli doona fiiri haddaan refresh idhaahdo kanna kuwan maxaa ka maqan css ka maqan css laawa so si aan css ugu sameyno maxaa isticmaali karnaa si aan css ugu sameyno css aan u sameyno waxaan isticmaali doonaa kan tusaaleaan fore iska dhig refreshre waxaan rabaa macnaha inay wax isle noqdaan forward bmg refresh ya laba isku eg saana ka rabaa waaya css ka la soo koobiyey css ka kan tagi doonaa waa soo koobiyeysan doonaa intaan la soo koobiyeyso control c intimaam control v container s2 sidoo kale kana maxaa waaye container s3 ama section 3 midka kana muxuu noqon doonaa container s4 noqon doonaa refresh kalarkasaan isku bedeli waxaan rabaa qoraal yaroo hoose inaan soo gashto oo ama paragraph inaan soo geliyo si aan paragraph soo geliyo waxaan samayn doonaa paragraph saan soo gelino waxaan u baahanahay si aan paragraph soo geliyo waxaan u baahanahay inaan paragraph inta soo gashto section 1 inaan inta soo gashto b aan samaysan doonaa paragraph wordkiisa kale waa waxaan dhihi doonaa rand equal rand inuu ahaan jeclahay paragraph intaa isoo koobiyey control c intimo control v le kudhi paragraph control s paragraph aan samaysta midda koowaad paragraph u samay fiiri haddaan refresh idhaahdo waxaad dareemaysaa paragraph aada u badan yahay mara waa soo cashire somehow uu badan yahay hataa tusaale ma uu dan leeyahay muhiim imaan qoraalka inuu saxan yahay kuwaan kalena ku koobiye oo kaliya
paragraph kale bidi ma inta bidar isu koobiyay arba si aan waqtiga ugu faa'iideysan inaad bi qorto oo 10 ku saddex qorto ayaa sameyn kartaa marka aniga waa soo gaabsana waa soo koobiyeysan waxaan ma doonaa s section 2 oo koobiyen doona sidoo kale section 3 ayaan doonaa control v section 4 sidoo kale control v intaana sameyn doona haddii aan refresh iraahdo waxaad dareemaysaa in ayaga dhan la sameeyo xoogaa farta marka ma wanaagsan fiir farta waxaan sameyn doonaa paragraph waxa ku dhex jira si aan paragraph shaqo u qabto mid kasta waxaan dhihi doonaa container section 1 ku dhex jiro paragraph ku dhex sii dhex jiro shaqo qabo intii maaw waxaan dhihi doonaa dot container containerka waxa ku sii dhex jiro dot s1 s1 ka bida ku dhex jirto shaqo qabo waxaa laga qabanayaa bida paragraph waxaa rabaa ko text align justify text alignment is waxay iltaa justify text align justify sidoo kale waxaan rabaa padding oo sameeyo padding 20 pixel kala 20 pixel inaan geesaha soo skiyo 20 pixel inaan geesaha soo skiyo rabaa waayahay saa kale sikin waxaan leenahay padding 20 pixel 20 pixel iyo kala siki haddaan refresh raado waxaad dareemaysaa in somehow la diyaariyo kuwan kale maxaan sameynaa inta aan samaystay section 1 baa soo koobiyeysanaa oo kaliya adigu waxaad sii samayn kartaa inaad mid kasta aad qorto soo aniga waa isku koobiyeysanaa intaan ma imaada waxaan leeyahay control c intaan ma isku koobiyeysanaa control v section 2 intii ma control v section 3 halkan ayaan doonaa sidoo kale control v waxaan dhihi doonaa section 4 control s waxaan dhihi doonaa refresh symbol waxaan u baahanahay read more button inaan u yeelo read more inaan u yeelo meesha kuwaad tusaale ahaan paragraph kuwaad fiir hadda meesha u dambeyso meesha paragraph kuwaad u dambeyso waxaan dhihi doonaa dot hoostiisaan button ku sameysan doonaa marka buttonkan waxaan leeyahay taabkiisu ha ii noqdo submit iska dhe buttonkan marka waxaan dhihi doonaa read more sidaan odhaa marka hadda haddii aan soo kici fiiri refresh haddaan iraado buttonkan waa kana read more xogaa buttonkan waxaa rabaa inaan qurxiyo colorkan ka bedelo ayaa u baahanahay colorkan aan ka bedelo aan u baahanahay maxaan leeyahay section containerka section 1 ku dhex jiro wadana soo maray containerka section 1 ku dhex jiro paragraph ku sii dhex jiro paragraph button ku sii dhex jiro shaqo qabo wadadaas dheer oo soo martay waxaan leeyahay ko containerka section 1 ku dhex jiro paragraph ku dhex jiro paragraph button ku sii jiro ma waa shaqo qaban rabnaa waxaan leenahay background colorkiisa buttonka ama wiirtii hayta oo sameeyno background color iska sameeysiisu daa background colorkiisa waxaan ka dhigi doonaa somehow blue background colorkiisa waxaan ka dhigi doonaa blue waxaan sameysan doonaa height dhererkiisa waxaan ka dhigi doonaa conton pixel dhererkiisa waxaan ka dhigaa conton pixel aaday u badan tahay conton pixel 20 iga dhig refresh 20 waa yar tahay 30 u daa marka wax kasta 30 ayaan u daaynayna waxaan rabaa geesaha reejinta inaan ka jaro waxaan leeyahay sidoo kale colorkiisu farta colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa caddaan because farta qoraalka kusoo qormaya colorkiisa qoraalkaas white aan noqdo
afargeeska inaan ka saaro sidoo kale hareejinta madowga inaan ka saaro maxaa leeyahay borderkiisu 0 iga dhig borderkiisu 0 maxaa borderkaas uu noo qabanaya borderkaas wuxuu noo qaban doonaa inuu meeshan 0 ka dhigo haddaan refresh iraahdo maxaa la sameeyey kalarka afargeeska laga saaray sidoo kale inaan u yeelo border radiuskiisu waxaan ka dhigi doonaa 20 pixel 20 pixel ka dhig border radiuskiisu xoogaa 20 way badan tahay 10 ka dhig 10 naga badan 10 ayaa inaga filan refresh sidaan isku bedelo marka read more intaan ma soo koobiyeysanayna kuwan kale ma sameeynayna oo kaliya okay intii ma marka ugu horeysa waxaan soo koobiyeysan doonaa buttonkii control C waxaan maari doonaa section 2 meesha u dambaysa tagi doonaa section 2 waxaan dhihi doonaa dot enter control V sidoo kale waxaan maari doonaa section 3 meesha ugu dambaysa tagi doonaa section 3 meesha ugu dambayso iyana waxaa leedahay control V section 4 sidoo kale intaas ma sameynay waxaan wataa kubiga buttonka ma wataa markasta laakiin adiga waxaa sameynaysaa inaad sameyso ayaa isku dayaysaa control V aniga waa iska soo koobiyeysta haddii hadda refresh iraahdo waa la sameey kuwan laakiin maxaa ka dhiman CSS ka dhiman haddii aan CSS ku darin sidaan u muuqanaya laakiin waxaan rabaa inaan CSS inaan ku soo daraan waa CSS inaan ku soo daro halkii aan ku laaban doonaa meeshii aan ku laaban doonaa waxaan dhihi doonaa CSS gee CSS kadib aan ku laabano waa kan kaliya maxaa soo koobiyeysana intaan ma soo koobiyeysana button section 2 control C control V section 1 oo inta ka dhigan kaliya section 2 ka dhigan refresh section 2 waa lagu diyaariyaa section 3 control V S1 meesha S3 ka dhig sidoo kale intii maaw waxaa ka dhigi doontaa somehow S4 haddii aan refresh iraahdo sidaa la sameeyo read more waayo meeshaan inta maxaa waa sababta banaankan maxaa waa meeshaas qalad baa ka jiro haddii aan u noqdo kor oo aan fiiriyo headerkeegu wuxuu u baahan yahay float left ayuu header ku baahan yahay waa qarsoonta waxaan rabaa sameeyo footarka saan sameyno waxaa maari doonaa footarka inoo samaysan yahay wada kambo keliya CSS ka imaw waxaan dhihi doonaa footarku way footar keligiisa aan qoro because class igu wacan keligiisa ay wacan hadduu keligii ku wacan yahay shay kastoo keligii ku wacan keligaa u adoontaa shay kasta oo class ku wacan ama dot ku wacan shay kasta waxay aad ugu wacday ayaa ku adoontaa taas inaan fahantaan rajeyna wirtigiisu waxaan ka dhigi doonaa 100% heightkiisu waxaan ka dhigi doonaa 70 pixel background color aan samaysan doonaa background colorkiisu waxaan siin doonaa headka mid ku wato kadib waxaan dhihi doonaa float left si uu ugu soo baxo xogaa maadaama maanta float left aan soo siinay waa inaan float left kala siiyo waxaad dareemaysaa headerka halkaan uga saarno waay sababta mataqaanaa because sababtu waxaa waaye midkan imaaw buttonka uma baahni waxaan u baahanahay containerkaygu ayaa imaan doonaa inta waxaan ku wadi doonaa float left kan waxaan wadi doonaa float left kanna sidoo kale float
float left ayagana float left waa mid kasta float left waa hadduu ku shaqeyn waayo float left control s haddii aan refresh raado waxaad dareemi doontaa in hierarchy uu halkan imaado so hierarchy still wuxuu iga haystaa position margin top ayaan isticmaali doonaa marka margin top 400 pixel margin top 400 pixel walaa wuu isdheereeyey 50 ka dhig waxaan doonayaaba inuu kala sigto heerna ka sigto still 50 ma rabo 100 rabo marka ama 80 rabo inuu igana sikada u baahanaya space inuu siiyaa sidaan u baahanaya waxaan rabaa footerkeena inaan copyright ku qoro copyright sida lagu qoraa footerka hore usoo baranay iyadana waxaan sameynaa intaan aan doonaa footerkan kala jibina waxaan leeyahay copyright Gabo technology copyright for Gabo technology da refresh raado sidaa uma adfiri sidaa la doonaya dhaxda kana raba marka wadna isticmaal doon toos oo wacanay footerka shaqada ku dhex jirta footer copyright hajwan kuma soo wacan hajwan ku wada qasb copyright control x hajwan ama hajtu waxa ku waa inaad kaliya wax ku dhex wacato soo u shaqeeyo yes okay kana shaqo qabsaraa marka alle footerka hajtu ku dhex jiro shaqeeyo dhow alle kalarkeedu waxa ay rigtaa cadaan sidoo kale waxay samaysaa text align center igee text align center text alignment-giisu waxaan rabaa inuu tago centerka inuu tagaan rabaa refresh text qoraalkiina waxaa la geeyay centerka marka digaa sidaan because qaladka waxaa ka jiri float left ayaan ku dara kuwaan marka image float left laguma daro that's why uu sawirkii inta u tago qoraalkiisa haddii aan float left ka qaaday sidaan usoo baxa marka waxaan rajeynayaa inaad ka fahamteen still انت ما dareemaysaa still waxa ka jira qaladka maxaa waa read more mid kale wax ka jira macna footerkeena waxaan ka dhigi doonaa 100 way u yartahay macna 80 hoostu iskaga jira haddaan 100 ka dhigto uu ii saxo marka our team marka sidaan waxaan rajeynayaa insha Allah inaad badan ka fahamteen videoga hala la garay hala sheegareeyo haddii wax qaladaad uu jiro fahmi waysay qaybta comment igu reeb assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh